ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى وقد مننا عليك مرة أخرى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. صدق الله العلي العظيم. يا أخوانك kun ya saga boqol iyo konton iyo sideedkii anigoo dhalinyaro ah iyada hidaha iyo dhaqanka soomaaliyeed martabada qaranka waa door u jeedisay. burburkii markuu dhacay waxaa jiray dalka Kanada, halkaas waa u hawlgalay inaan mideeyo 14 urur oo qabiil ku salaysan si loogu adeego qaxootiga Soomaaliyeed ee dalka Kanada ku nool, kuwaasoo u badnaa haween iyo carruur. mudane gudoomiye isla muddadaas aan joogay dalka Kanada waxaan aad ugu hawlgalay in dowladda Kanada ay u saarto guddi heer sare ah oo garsoorayaal ah oo soo baara sababta beledweyn loogu dilay 14 Maarso 1993 wiil Soomaali ah oo la odhan jiray Shidane Caroni. guddigaas oo baarista ku hawlgalay muddo sanad iyo bara waxay ku aamiyeen in magdhow buuxa la siiyo qoyskii Shidane, lana ciqaabo madaxdii iyo askartii mas-uulka ka ahayd dilkaas, iyo in la baabi'iyo guutadii commandoska ahayd oo dhan oo ka hawlgashay beledweyn waktigii UNISOM. mudane madaxweyne, muddada aan qaramada midoobay joogo miyay aqoon tahay inaad waqtigaa xaadirka inaad soo istaagtay madaxweynaha Soomaaliya? su-aalaasi soo baxday, jawaabtu waxay soo baxday haa, sababtoo ah Soomaaliya ayaan arkay oo jiilicaysa oo qaaradda
Africa sii tirmaysa oo dadkeena islaaynayo dhibaato iyo waxyaaba aan loo mari karin meesha ka dhacay kadib waxaan go'aansan in aanu badbaadin karo ummadda Soomaaliyeed ee dhibaato weyn dhacday aanu u noqdo sulh waayo Soomaali saado wanahay waslis dhibaato ayaa kala dhacday bal waxaan leeyahay bal taw يذكرون لما إذا ركز حل أدنى مضر فكذب عن قولي إن أردت أن أقول أقاقه أنا أقول إن أقول كرو وآملا دولة نبتقلية أيضا برشدة عاطماتك فكذب مكان بيسي لو بحي هاي أردت أن أقول أقاقه أيان سألا دولة ayaan mooday amaad ku faa'iideysan sidaas ayaan tabar ku waxa wadu waxa tar doona hadii hal raali ka noqdo inaan ku faa'iideysan walu tahay baad dadka waru leeyahay waa baad dadka bulshada ku tigay waxaan waxaa wajib barnaamijkayga haddaan idin soo bandhigo waxbadayga Soomaaliyeed waxaan doonayaa marka hore inaan ka dhigo hubka dadka sida shiracdarada haysto wax ku gumaado wax ku jira maanta waxaa la joogaa qori ma shaqeynaya qallaan shaqeynaya in aanu wax ka bedelo siyaasadda guud ee Soomaaliya maadaama adduunka oo dhan dhibaato weyn maaragtay dibadda Soomaali badan ayaa u baxaysa waqti saddex qaarad ayaa maaragtay lagu kala xiray inteeda u kala xiray waxaan jeclaystay in maaragtay Soomaalida iyo carruurtoodii dibadda ku dhibaataysan yihiin in aanu waddanka nabadgelyo ka salaxno dowlad aan ka dhalinno dadkeena way isu baahan yihiin wiil waalid ayaa is arkin oo inay dibadda soo jiraan ayaa u qaldan oo maaragtay nin walba waalidkiisa qaar waxaa dhacday inuusan duulin qaar kale inuu maaragtay wuxuu jeclaa inuusan arkin carruurtiisa inuu awoodi inuu maaragtay talaabo qaaran kale marka taas waxaa ugu bixi karaa oo keliya in aanu samaysano dowlad oo maaragtay ka shaqaysa nabadgelyada ka shaqaysa maxay noloshiisa wax damaanad qaada marka waxyaabaha soo socda markaan sugo nabadgelyada aan sugo muxuu ahaa caafimaadkiisa dowladdiisa dhammaan wixii bulshada kaabaya dadka maaragta ku dhibaataysan maxaa gudaha ama dibadda qaar waxaa jiro maaragtay aan awoodin in ay waxay helaan dhaqaale noocaas dadka curyaamiinta oo kale dadka dacda ah waxaan balan qaadayaa in aanu fiira gaara u yeelanayo dhaqaaleynayo xanaaneynayo